maanta xagaynu u degdegaynaa waxaynu u degdegaynaa u samafalka waalidka u degdeg u samafalka يا فتاة بالله بادر يا أخيه ما دمت قادر أو ما ترى بالدرب عاثر ولنا رب يؤازر يا فتاة بالله بادر يا أخيه ما دمت قادر أو ما ترى بالدرب عاثر ولنا رب يؤازر كم منح. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal kusoo dhawo barnaamijka u degdeg xalqadii salawaad maanta xagaynu u degdegaynaa waxaynu u degdegaynaa u samafalka waalidka u degdeg u samafalka waalidka walaal waalidiinta xaq weyn ay nagu leeyihiin xaqoodana lama gudi karo sidaa daraaddeed waxaa lanogu baahan yahay in aan baari u noqono oo aan wanaajino si aan u helno raali aanshaha rabbi sababtoo ah raali aanshaha rabbi wuxuu ku xiran yahay raali aanshaha waalidka marar badan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlay xaqiisa wuxuu raaciyey xaqa waalidiinta wuxuu leeyahay wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wabilwaalidayni ixsaana aayad kalena wuxuu ku leeyahay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana haddaba waxaa waajib nagu ah in aan baari u noqono oo aan wanaajino waalidiintayna iyadoo saas ay tahayna way kala xaq badan yihiin hooyada ayaa ka xaq badan aabbaha marka la weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuul allow yaa igu xaqnimo badan in aan wanaajiyo rasuulka wuxuu ku jawaabay hooyada mar kale buu yidhi hooyada mar saddexaad buu yidhi hooyada marka afraad ayuu yidhi aabbaha waayo hooyada waxay caloosheeda kugu soo siday 9 bilood oo way ku foolatay oo way ku nuujisay dhibaato fara badan ayay kula soo martay haddaba sideen ugu samafali karnaa waalidiinteena waxaynu ugu samafali karnaa in aan kula hadalno hadal wanaagsan hadal qalbiga u fiican hadal degan oo aanan dhaawacaynin ilaah wuxuu yidhi falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariima ha ku oran kelimada uf la yidhaahdo waxaad ku tidhaahdaa hadal wanaagsan sidoo kale markaan u wacayno iyaga in aan ugu wacno magacyo wanaagsan oo xishmad leh inaan ku dhahno aabe ama hooyo iyo wixii la mid ah qaabka kale oo aan ugu samafali karno waalidiintayna ayaa wuxuu yahay in aan ficil sameyno oo garabkooda aan ahaano waxyaalaha ay u baahan yihiin in aan u qabano oo aan u adeegno qaabka kale ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay in aan ugu samafalno maalkeena oo aan qarash gelino waxyaalaha ay u baahan yihiin in aan siino ha noqoto cunto ama dhar ay xirtaan ama guri ay degan yihiin ijaarkiisa walaal baarinimadu waxay ka fadli badan tahay jihaadka ibnu mascuud allah ka raali noqdee wuxuu yidhi waxaan weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam camalka ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay rasuulka wuxuu ku jawaabay in aad salaada wakhtigeeda ku tukatid haddana wuxuu weydiiyey camalkee wuxuu ku yidhi in aad baari u noqotid waalidiintaada haddana wuxuu ku yidhi camalkee wuxuu ugu jawaabay inaad ilaah dartii u dagaalantid jihaadka waxaa ka horeeya waxa weeyaan inaad baari u noqotid waalidiintaada waxaad ogaataa sida ay waajib u tahay baarinimada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaalmarinayo inta aad dunidan joogtid intaadan aakhira tagin ka hor adduunka ayaa lagu tusinayaa albaabo fara badan ayaa lagu furayaa umuurahaaga dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ku fududaynayaa saxaabi ayaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ku yidhi rasuul allow waxaan doonayaa inaan dagaalka aado waxaana kugu yimid inaan kula tashto rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey ma leedahay hooyo ninkii wuxuu ku jawaabay haa markaas buu ku yidhi hooyadaada laasim oo iyada ag joog jannada aad raadinaysid waxay ku jirtaa lugaheeda hoosteeda xadiid kale ayaa waxaa ku yimid shaki kuma jiro 3 duco aqbalitaankooda waa ducada qofka la dulmiyey iyo ducada waalidka iyo ducada qofka musaafirka ah ilaah naga dhigo kuwa waalidiintooda baari u noqda rabbana ighfir lana waliwaalidina وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادر يا أخي ما دمت قادر أو ما ترى بالدرب عاثر ولنا رب يؤازر
هذه الدنيا مراتب وفصول ومناقب، لا تكابر قم وواكب، آخر العمر مقابر، آخر العمر مقابر.